halkani waa deegaanka lagu magacaabo deegaankii reer Saalax. waa dhul uu nabigeennu naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee inaga reebay inaan galno ama booqanno ilaa iyo inaga oo ooyeyna ma ahane. waxay ahaayeen dad uu alle ku galladay xoog iyo joog dheeri, awoodna loo siiyey dhisidda daaro iyo qasriyo aadamo kale uusan awooddeeda lahayn marka laga yimaado reer Caad. haddana sidaasi oo ay tahay waxay ku gaaloobeen allihii ku galladay nimcooyinkaasi heer ay gaareen inay dharaar cad dilaan hashii uu Ilaahay mucjisada uga dhigay ka hor inta aan la marsiin cadaab iyo ciqaab, ka dhigtay kuwa ka dabar go'a safxadaha taariikhda. haddaba yay ahaayeen reer Thamuud, se muxuu kala kulmay nebigii loo diray dadkaasi ee Saalax calayhi salaam. magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina waa Waaberi Media. ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. باليمن والإيمان تسمو بنفحته ملائك الرحمن، تسمو بنفحته. alle subxaanahu wa tacaala ayaa reer Thamuud u diray walaalkood Saalax oo nasab ahaan iyaga ka dhashay. nebi Saalax calayhi salaam waxa uu ka mid yahay durriyaddii iyo faracii nebi Nuux calayhi salaam, sida Ibnu Kathiir ku sheegay kitaabkiisa qisooyinka nebiyada. abtirsiga nebi Saalax waxa uu noqonayaa Saalax ibnu Cubayd, ibnu Aasifa, ibnu Maasikha, ibnu Cubayd, ibnu Jaadir, ibnu Thamuud, ibnu Jaathir, ibnu Iram, ibnu Saam, ibnu Nuux calayhi salaam. wuxuu ka dhashay dadkii la ohan jiray Thamuud oo dhalasho ahaan qaraabo dhow la ahaa reer Caad. nebi Saalax intii aan la soo dirin ka hor waxa uu ahaa qof dadkiisa dhexdooda ku leh sharaf, xikmadna u saaxiib ah oo ay dadkiisu aad u jecel yihiin ayuu ahaa. qoys laga haybaystana waa uu ka dhashay. magaca nebi Saalax 9 jeer ayuu alle subxaanahu wa tacaala qur-aanka ku sheegay. qisada reerkiisana dhowr jeer ayuu qur-aanka uga warramay, si gaaban iyo si faahfaahsanba. reer Thamuud ayaa waxay ku noolaayeen deegaan lagu magacaabo Al-Xijir oo ku yaala waqooyiga dalka boqortooyada Sacuudiga. waxa ay u dhexaysay labada magaalo ee Madiina iyo Tabuuk. deegaanka reerkan wuxuu ahaa mid leh dooxooyin barwaaqo ah iyo waadiyo biyo badan, kuwaasi oo aysan biyuhu ka go'in. maadaama ay dhalasho ahaan isxigeen reer Caad, waxay xagga xoogga iyo dherarka u dhowaayeen reer Caad. waxay ahaayeen dad uu alle u hibeeyey awood iyo lixaad. waxay u talin jireen qabaa'il badan oo deegaanka kula dhaqnaa. magaalo madaxna waxa uu ahayd degmo lagu magacaabo Madaa'in. barwaaqo iyo berisamaad ayay ku noolaayeen. waxa u dheerayd ilbaxnimo ku salaysan aqoon iyo farsamo ay heleen oo ay nolosha u kaashanayeen. waxay ahaayeen qabaa'il carbeed oo xadaarad fog leh. reer Thamuud waxay xirfad u lahaayeen dhisidda guryaha. waxay buuraha ka dhex dhisi jireen daaro dhaadheer. awooddooda jir ahaaneed ayaa u suurtagelin jirtay inay dhagaxyada buuraha qodaan kadibna guryo ka dhex sameeyaan. dhismaha guryahaasi dhinac waxay ka ahaayeen buurihii ay ku naqshadeeyeen, dhinaca kalena waxay ka yihiin aqallo qurux badan oo dhismahooda si wanaagsan loo farshaxameeyey. qur-aanka marka lagu tilmaamayo guryahaasi, ereyga loo adeegsaday wuxuu yahay naxti oo loola jeedo farshaxan. guryo kale oo ereygaasi la raacshayna qur-aanka laguma sheegin. reer Thamuud kuma shukrin nimcadaasi iyo awooddaasi eebba ku manaystay. kibir ayay ka qaadeen. waxay ahaayeen kuwo aad u dulmi badan. arrinta uga sii daran ayaana ahayd in sidii reer Caad ay la yimaadeen shirki. dhagaxyada ayay asnaam ka qoran jireen si ay u caabudaan, kaalmana u weydiistaan. alle subxaanahu wa tacaala oo sifaadkiisa iyo magacyadiisa ay ka mid tahay inuusan dulmin addoomihiisa, inta aanu qoom halaaginna uu u diro qof iyaga ka mid ah si uu u gaarsiiyo fariinta xaqa ah, ayaa u diray nebi Saalax calayhi salaam si uu dadkiisa u gaarsiiyo fariinta alle. Ibnu Kathiir oo sharaxaya aayadda 73 ee suuradda Acraaf wuxuu yidhi waxay mufasiriintu isku raaceen inay reer Thamuud oo maalin ku shiraya goobtooda shirarka uu halkaasi ugu yimid nebi Saalax. wuxuu ugu yeeray inay Ilaahay oo keliya caabudaan kana dheeraadaan shirkiga iyo asnaamta. reer Thamuud oo sidii reer Caad ahaa dad aad u kibir badan ayaa jees-jees iyo aflagaado markiiba ku bilaabay nebi Saalax.
waxay yidhaahdeen waxaad tahay mid waalan oo sixran. nebi saalax kama quusan inuu dacwadda reerkiisa la dhex taagnaado. wakhti walba wuxuu xasuusin jiray wixii qabsaday reer caad oo ehel iyo xigaal la ahaa, sheekadoodana ay maqleen. wuxuu xasuusiyey in alleh subxaanahu wa tacaala uusan ka jeclayn reer caad, haddii ay shirkiga ku sii jiraanna ay mari doonaan isla jidkii halaagga ahaa ee reer caad ay mareen. wuxuu ula tegay dhambaal uu alle subxaanahu wa tacaala uga waday. waxaa loogu sheegayey caqiidada hagaagsan iyo hannaanka nolosha ee habboon, balse in yar mooye intii badnayd ee reer tamuud waa ay diideen warkiisii. nebi saalaxna waxay si bareer ah ugu dhaheen, dhexdeenna waxaad ka tahay dayro iyo mid la nacay. markii ay ka qusteen in nebi saalax ay ka hor istaagaan farriinta uu gudbinayo, ayay madaxyaweyntii reer tamuud ku tashadeen inay xujeeyaan saalax calayhi salaam. waxayna ku yidhaahdeen, haddii aad buurta dhagaxa ah, waxay u tilmaameen buur dhagax ah oo meel ku taallay, nooga soo saartid hal geela oo sifooyinkeedu sidaas iyo sidaas yihiin, ayna riman tahay, cunugeeduna sifooyinkaasi leeyahay, waan ku rumaysanaynaa. markaasuu nebi saalax wuxuu ku yidhi, bal ka warrama haddaan idinka yeelo waxaad doonaysaan oo aan idin siiyo, ma aaminaysaan? waxay yidhaahdeen haa. alle subxaanahu wa tacaala ayuu bariyey inuu siiyo calaamadda ay ku xujeeyeen. markaasuu alle subxaanahu wa tacaala wuxuu buurta dhagaxa ah amray inay soo saarto oo ay dhexdeeda ka soo baxdo hal riman oo 10 bilood sida, oo leh sifooyinkii ay weydiisteen, sida alle noogu sheegay aayadda 73 ee suuradda acraaf. markii ay hashu soo baxday, yaab iyo amakaag ayay afka qabsadeen. kadibna nebi saalax ayaa ku yidhi, tani waa hashii alle ee daaya, ha daaqdo arliga ilaahay, xumaanna ha u geysanina si uusan cadaabka ilaahay idin haleelin. in yar oo ka mid ah ayaa nebi saalax rumeeyey, intii kalena kibir ayay ka sii qaadeen iyo inay dhahaan waxani waa sixir weyn. hashii waxay dhashay nirig. nebi saalax ayaa u sheegay inay hasha la socoto shuruud ah ceelkii ku yaalay magaalada, inay hashu maalin ka cabto, maalin kalena ay reer tamuud ka cabbaan, in hashu daaqdo meesha ay rabto, cidna aysan dhibaato u geysan. muddana sidaasi ayay hawshu ku socotay, ceelka biyihiisana sidaasi ayaa loo kala qaybsaday. hasha maalin waa la waraabin jiray, maalinna way daaqi jirtay. maalinta ay cabbayso biyaha looma oggolayn inay dhaansadaan ama ay cabbaan biyaha. muddo kadib ayuu kibirkoodii tusay inaysan macquul ahayn in hal neef oo geel ah ceelka maalin dhan loo daayo. duqaydii reer tamuud ayaa shir isugu yimid, waxayna isku raaceen in hasha ay dilaan oo ay isdhaafiyaan si aysan ugu ciriirin biyaha. waxaa hawsha dilka loo xilsaaray nin la odhan jiray qidaar ibnu saalif, oo ahaa mid isku darsaday shar iyo xoog badni. qidaar markii hore arrinta wuu ka cagajiiday. duqaydii ayaa u diray haweenay aad ugu fiicnayd gubaabada, ninkeeduna madaxda reer tamuud ka mid ahaa, waxayna u ballanqaaday haddii uu fuliyo arrinta dilka in ay siin doonto mid ka mid a 4 gabdhood tii dooqiisa ah. qidaar waxa uu aqbalay qorshihii, wuxuuna diyaarsaday 8 nin oo kale oo hawsha la fulisa. aayadda 48 ee suuratulnamli, alle ayaa ku tilmaamay inay ahaayeen 9 nin oo dhulka fasahaadinayay. qidaar oo ay la socdaan 8 kale ayaa u soo dhaqaaqay dhankii hasha. ugu horayn qidaar ayaa hasha faylaha gooyey, kadibna warankii ayuu ku dhuftay hasha ilaa ay dhulka ku dhacdo. kadibna intoodii kale ayaa waranka iyo mindida ku bilaabay ilaa ay jidhkeedii cadcad u googooyeen. markii hashii la dilay, nirigteedii way carartay, waxayna fuushay buur dusheed. 3 jeer ayayna dhawaaqday. nebi saalax waxa uu ku yidhi, waxaad sugtaanba waa 3 cisho. ma aysan rumaysan ballantii nebi saalax, balse kibirkoodii ayaa mar kale tusay dhagar kale. waxay ku dhaarteen inay dili doonaan nebi saalax calayhi salaam. kadibna waxaa la qorsheeyey in nebi saalax sidoo kale la dilo, hawshana ay fuliyaan isla 9kii nin ee hore, si arrinta uu wado oo dhan ay halkaasi ugu istaagto. markii ay damceen inay dilaan, ayaa alleh u soo diray dhagax weyn oo burburiyey intii damacday inay dilaan nebi saalax calayhi salaam. waxaana ku dhintay isla goobtaas 9kii dhagarqabe ee ka dambeeyey dilka hasha iyo iskudaygii fashilmay ee ay ku doonayeen inay ku khaarijiyaan nebi saalax calayhi salaam. dadka intiisa kale ma toobadkeenin, balse si kibir leh ayay nebi saalax ugu yidhaahdeen, noo keen cadaabka aad hayso. markii maalintii dhammaatay, reer tamuud waxaa ku bilowday ciqaabtii alleh. maalintii koowaad ee ballanka loo qabtay, wejiyadoodii waxay noqdeen midabka hurdiga ama jaalle xigeenka ah. maalintii labaadna wejiyadoodii waxay noqdeen midab guduud ah.
maalintii saddexaadna waxay wejiyadoodii isku beddeleen madow. waxay seexdeen iyaga oo aad u walwalsan oo aanan aqoon waxa ku soo wajahan iyo waagu sida uu ugu baryi doono. maalintii afraad markay qorraxdii soo baxday ayaa waxaa cirka uga yimid qaylo iyo dhulka oo ku gariiray. waxaa haleelay cadaab daran oo kaga yimid xagga alle subxaanahu wa tacaala. qof walbana halkii uu joogay ayuu ku naf waayey. nebi saalax iyo intii rumaysay alle waa badbaadiyey, waxaana lagu amray inay u guuraan dhanka shaam. raadadkii iyo guryihii ay ka tegeen reer tamuud waa kuwo ilaa maanta muuqda. buurihii ay guryaha ka qodeen iyo dhismayaal ay xardheen oo deegaan u ahaa ayaa weli ku yaala deegaanka madaa'inu saalix ee dalka sacuudiga. dhismayaashii reer tamuud laba qaybood ayay ahaayeen. qayb dooxooyinka ayay ku yaaleen oo waxay ahaayeen qasriyo oo waa dhismayaasha la baabi'iyey. qaybta kale waxay ahaayeen guryo deegaan ah oo ay ka naqshadeeyeen buuraha, waana kuwa haray ee ilaa maanta baaqiga noqday. alle subxaanahu wa tacaala ayaana uga tegey inay calaamad u noqdaan kuwa ka dambeeya. ibnu isxaaq wuxuu yidhi, rasuulkii alleh ee nebi maxamed naxariis iyo nabadgeliya korkiisa ha ahaatee, markii uu alxijri marayey wuu ku degay, dadkana ceelkeeda ayay biyo ka soo dhaansadeen. markaasuu rasuulku sallallahu calayhi wasallam ku yidhi, biyaheeda waxba ha ka cabbinina, salaadna ha uga weyse qaadanina. sidoo kale ibnu hishaam wuxuu yidhi, markii uu rasuulku sallallahu calayhi wasallam alxijri marayey, maradiisii ayuu wejigiisa saaray oo uu ku daboolay, hashiisiina wuu dhaqaajiyey. kadibna wuxuu yidhi, ha gelinina guryaha kuwa dulmiga falay idinkoo ooyaya mooye, cabsi aad ka qabtaan inay idinku dhacaan wax la mid ah waxa iyaga ku dhacay oo kale. arrinta argagaxa iyo fajaca leh ayaa ah in haatan deegaannadaasi uu nebigu naxariis iyo nabadgelya korkiisa ha ahaatee inooga digay geliddooda ay maanta dowladda sacuudigu ka dhigtay dhul dalxiis oo lagu qabto bandhigyo iyo damaashaadyo aan dhammaad lahayn, sida inaan xilli ka mida xilliyada lagu cadaabin ummad dhulkaasi. intaasi ayaynu ku soo koobaynaa daawadayaal muuqaalkeenna maanta. haddii uu ku qanciyey muuqaalku, ha ilaawin inaad la wadaagtid asxaabtaada. sidoo kalena haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta nagu xihan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.